kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka maawilada dhalanka waa ka daawataan marka soo booqataan channelada aanu ku leenahay YouTube iyo Facebook ee dhalan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan sheekadan toddobaadkan idinku hayana waxay ku saabsan tahay caruuskii ilmeeyay habeenka arooskiisa anse ku bilaabo waxa la yiri bari hore waa bari hore waxa jiray qoys caan ahaa waxay caan ku noqdeen kadib markii ay sigaar isaga sooceen nolosha dadka ay la deganaayeen goonina uga dhex baxeen bulshooyinka faraha badan ee ku hareereysnaa waxay hayeen qoys dadka gaar isaga soocay iyagoo doonayay in magacooda iyo maalkooda ay ka ilaashadaan bulshooyinka kale ee la jaarka ah oo u arkayeen inay noloshooda iyo maalkoodaba khatar ku yihiin waxay lahaayeen dhaqan adag oo dadka intooda kale gaar uga soocay waxa dhaqanadaas ka mid ahaa markii caruurtoodu ay qaan gaadho wiil iyo gabadhba inay u guuriyaan caruur kale oo qoyskooda ka tirsan si aysan bulshooyinka kale u soo dhex gelin dhaqankan oo mid adag oo si ba'an ay u ilaalin jireen waxa markii dambe ka hor yimi xamse markuu ka caamay waxa go'aan ku gaadhay in caadooyinka iyo dhaqanada gurracan ee qoyskooda uu gaar uga baxo marka mustaqbalkiisa iyo lamaanaha uu nolosha la qaybsanaya ay timaadana uu isagu go'aan ka gaadho midana mar hore ayuuba sameeyey waxa hadda wada sheekaysi iyo gurbay heshiis ku yihiin gabadh ay jaamacadda wada dhigtaan balse inuu arrintan qoyskooda u sheego waa mid uu og yahay in dhibaato weyn uu kala kulmi doono ka gadaal markii uu jaamacadda dhameeyey sanooyin fara badan oo waxbaranayay kadib hadda waxa uu taagan yahay marxaladii uu go'aan qaadan lahaa rabitaankiisana uu caddayn lahaa markii uu jaamacadda dhameeyeyba waxa uu bilaabay shaqo balse aroor kasta marka uu gurigooda ka sii baxayo waxa uu warwar iyo walaac ka qabay sida uu qoyskooda ugu sheegi doono rabitaankiisa sababtu waxay ahayd inuu maalin kasta arkayay sida hooyadii iyo aabihii ay ugu murmayaan sidii isaga ay ugu xuli lahaayeen gabadh uu nolosha la wadaagi lahaa marba gabadh uusan isagu aqoon wax ka dhaxeeyana uusan jirin ayay odhan jireen midaas ayaynu doonaynaa maya midan kale ayaynu guurinaynaa waxuu arkayay in noloshiisu ay u afduuban tahay qoyskiisa isagoo aan waxba laga talagelinna loo xulayo gabadh lagu qasbayo inuu nolosha la wadaago balse waqtiga ayaa isgurayay markastana waxaa loo sii dhowaanayay marxaladii ay ahayd inuu go'aan qaato subax maalmaha ka mida ayuu shaqada u baxay isagoo go'aan ku gaadhay marka caawa uu qoyskooda ku soo laabto inuu runta sheego waxa uu aaday shaqada maalintii oo dhanna intuu shaqada joogay wax kale kama warwareyn waxa madaxiisa ku soo noqnoqonaysay halka uu caawa wax ka bilaabi doono iyo sida uu doodiisa u caddaysan doono markuu shaqada dhameeyey ayuu dib guriga ugu soo laabtay intuu baabuurka soo waday waqti roob badani da'ayay wax kale maskaxdiisa kuma jirin balse si kasta way xaaladdu u qadhaadhahay una adag tahay waxa uu go'aan cad ku qaatay inuu rabitaankiisa caddeeyo markii habeenkii la isugu yimi guriga waqti la wada cashaynayay ayaa aabbaha iyo hooyadu isaga hortiiba go'aan sii gaadheen isagoo keliya ma ahayn kan doonayayba inuu warka sheego balse qoyskiisa ayaa sidoo kale diyaar u ahaa markii miiska la fadhiistay cashada ayuu aabihii warka ugu bilaabay wuxuu ku yiri waxaad gaadhay waqtigaad kursan lahayd wiilkaygiyow waxaad dhamaysay waxbarasho shaqana waad haysaa arrintan anaga iyo hooyada sanooyin tiro badan ayaanu ka shaqaynaynay haddana waxaan doonaynaa inaad kala doorato laba gabdhood midii aad kursan lahayd kuwaasoo hablaha qoyskeena aan kaaga xullay markii su'aasha tan aabihii u soo bandhigay ayuu markiiba yaabay waxa uu ku yiri markay guur timaado
waa noloshaydana aniga ayaa ka go'aan gaadhaya adiyo hooyo toona waajibidi kama saarna in aniga ii doontaan gabadhii aan guursan lahaa aniga ayay tahay inaan raadsado xaqiiqaduna waxayba tahay waaban raadsaday oo gabadh aanu wada sheekaysano guurna ku heshiinay ayaaba jirtaa waa gabadh jacayl naga dhexeeyo sanooyin tiro badan ayaanu isnaqaanay middaas weeye midda aan guursanayo waxaa markiiba hadalka ka diiday aabihii waxa uu ku yidhi waad ogtahay waxa xeerkeennu dhigayo inta uusan hadalka dhammaynna hooyadii oo hadalka ay wiilkeeda ka maqashay si ba'an uga xanaaqday ayaa ku tidhi waxaad ku hadlaysaa kaamaanan sugayn waad og tahay in annaga iyo aabbaha waajib naga saaran yahay inaan kuu xullo gabadhii aad guursan lahayd waanan kuu xullay haddana waxa adiga kula jira labada gabdhood aan qoyskeenna kaaga doornay inaad mid ka mida guursato waxa uu ku yidhi ma noloshayda ayaad doonaysaan inaad idinku gacanta ku qaadataan anigu waxaan guursanayaa gabadh aan jeclahay iyadunay jecel gabadh aan aqaan iyadunay taqaan aabbaha dhalay wiilka iyo hooyadiiba si ba'an ayay uga xanaaqeen waxayna u sheegeen in dhaqanka iyo xeerka qoyskoodu yahay lama taabtaan meelna aan looga bixi karin waxay ku yidhaahdeen wax kastoo aad doonto waad heli kartaa balse markay timaado guurka waxaanu ka leenahay xeerkaasna waxau dhigayaa in gabdhaha qoyskeenna oo keliya aad guursan karto halka gabdhaheennuna ay guursan karaan wiilasha qoyskeenna oo keliya balse marnaba xamse taa kuma qancin markay cashadu dhammaatay ayuu bannaanka u soo baxay aabbihii ayaana la hadlay waxauu ku yidhi imaqal waan dareemayaa waxaad doonayso balse sidii aniga hooyada laygu guuriyey awowgana ayayda loogu guuriyey ayaan aniguna adiga kuugu guurinayaa tani waa xeerkeenna oo waad og tahay waa xeeladaan ku ilaashanayno xoolaheenna iyo xigaalkeenna wax doorasho oo kaaga bannaanina ma jirto hadda waxaan kugu amrayaa in gabadha aad jacaylka iyo guurkaba kula ballantay aad runta u sheegto waayo waxay xaqiiqadu tahay weligaa ma guursan kartid gabadh aan ahayn kuwa qoyskeena xamse xaaladda ayaa ku adkaatay wuxuu ahaa wiil waalid adeeca isaga oo qalbiga ka ooyaya ayuu qaatay amarkii aabahii siiyey waxa uu tegay gabadhii ay isjeclaayeen waxay ka shaqayn jirtay dukaan ubaxa lagu iibiyo balse markii uu ugu soo galay go'aanka uu qaatayna uu doonayay inuu sheego waxa mar keliya ku dhacday mucjiso lama filaana halkii uu ka hadli lahaa oohin keliya ayaa ka soo daadatay ayaan oo ahayd gabadha ay guurka wadaagayaan ayaa dareentay aad ayay u warwartay waxay istidhi maxaa ku soo kordhay maxaa ku dhacay muddo ayay aamusnayd oo ka warsugaysay inuu hadlo balse marba marka ka dambaysa waxa uu sii xoojinayay oohinta hadalna kama soo baxaynin markii dambe ayay ku xanaaqday waxay ku tidhi waad ii timi waad ooyeysaa waxna ii sheegi maysid ii sheeg waxaa jira ee kaa oohinaya maxaa soo kordhay maxaa dhacay inta uu oohintaas sii watay ayuu ku yidhi waxaynu ku heshiinay oo dhan waxaa burburiyey qoyskayga iyona muruge iyo ciil ayay la ooyday waxay ku tidhi waatan ka heshiinay wax kastoo nolosheenna ku saabsan intaasoo sanooyina adigoo keliya ayaan kula socday balse xamse waxaan oohinahayni ka soo bixi maaya afkiisa markii dambena isagoo murugaysan ayuu iska tegay waxau lug iyo socod ku maray xilliga badda wuxuuna ka murugoonayay xaaladda waxba ka qaban kari waayey ee noloshiisa saamaysay waxaa madaxiisa iyo maskaxdiisa ku soo dhacaya sida uu ku bartay ayaan maalintii ugu horraysay ee uu jacaylkiisa u soo bandhigay iyo sidii wanaagsanayd ee uga aqbashay waxuu xasuusanayaa inuu kula kulmay hoolka jaamacadda waxau sidoo kale xasuusanayaa sanooyinkii tirada badnaa ee wax wada baranayeen siday u fadhiyeen kursi isku beegan iyo sidii ay sanado fara badan ahaayeen lamaane dhan walba oo nolosha ku saabsan iska taageera wuxuu xasuusanayaa sidii ay ugala soo qaybgeli jirtay xaflad kasta oo noloshiisa ka farxisa wuxuu xasuusanayaa siday ula joogtay maalmihii noloshiisa ugu farxadda badnaa ee uu jaamacadda ka qalin jabiyey waxaasoo dhan maskaxdiisa ayay ku soo dhacayaan balse waxuu og yahay
inuusan waxba ka qaban karaynin haddana reerkiisa ku qasbeen gabadh uusan weligeed aqoonin inuu guursado maalmo kadibna waxaa loo guuriyey gabadh qoyskiisa ka tirsan jacayl iyo aqoon horena kama dhaxaynin gabadha xamse loo guuriyey isla muddo koobanna aroos weyn ayaa loo dhigay dhammaan xubnaha qoyskooda oo dhan ayaa soo dhoweeyey guurkooda waxaana loo abaabulay aroos weyn balse waxay mucjisayeen lama filaan dhacday markii xafladda aroosku bilaabantay waqtigii ahayd inay lamaanuhu ciyaaraan ayaa mar keliya uu oohin bilaabay caruusku dhammaan dadkii arooska joogay oo dhan ayaa arkay waxay dhammaantood ku qayliyeen alla caruusku wuu ooyayaa iyo maxaa ku dhacay muddo yar kadibna dhammaan dadkii joogay arooska oo dhan ayaa oohinta ku daray balse waxa la yaab ka ahaa waxay ahayd in gabadha uu aroostay marnaba aysan dareemin ee kelideed iska ciyaaraysay iyada oon wax naxariis iyo jacayl toona u muujin caruuska ooyaya arrintana waxay mar kale ku sii riday murugo iyo lama filaan markii dambena waxaa arrinta u adkaysan kari waayey awowgii inta uu yimi ayuu ku yidhi waan ogahay waxa ku hayaa waan ogahay inaanad raalli ku ahayn xeerarka iyo caadooyinka qoyskeenu leeyahay xeerarkan oo aniga iyo aabbahaba nagu qasbay in noloshayada lamaanahan la wadaagayno naloo dooro balse haddii maalinta arooskaaga aad sidan u murugootay una ooyeyso waxa weeye midaan la aqbali karin maanta waxay ahayd inaad faraxdo annaguna aan kula faraxno balse maalinta ay ahayd inaad oydo annaguna kula ilmayno waxay tahay maalintaad dhimatay ee qabriga lagu dhigayo maanta waa maalin farxadeed balse haddii ay isku beddeshay murugo waxaan go'aan ku gaadhay in hadda laga bilaabo aan arooska halkaa ku joojiyo sidaasna aad adigu kaga baxdo xeerka iyo caadooyinka qoyskeenu leeyahay balse waa inaad middaas saxiixda markii waagu baryo waxaa sidaas lagu joojiyey arooskii xamse iyo gabadha lagu qasbayey markii waagu baryeyna waxuu xamse saxeexay heshiis isaga iyo awowgii dhex maray wuxuu ahaa heshiis dheer oo dhigaya inuu bannaanka uga baxayo qoyskooda dhammaan hantida ay leeyihiin uusan weligii waxba ku yeelan doonin xamse markii heshiiskan saxeexay aad ayuu ugu farxay inkasta oo awowgii uu aad uga cadhaysnaa maalinta laga bilaabana waxay xamse is aroosteen ayaan oo ahayd gabadhu sanooyin tiro badan jeclaa waxa u bilaabantay nolol farxad iyo raynrayn leh inkasta oo aysan haysan maal iyo hanti badan haddana noloshoodoo dhani waxay ahayd farxad waxay ku dambaashaadi jireen meelahay noloshooda jecel yihiin waxay samaysteen aroos yar waxayna ahaayeen lamaane jacayl noloshooda ku dhammaystay maalinta laga bilaabana waxuu xamse bannaanka uga baxay qoyskooda iyo caadooyinkii ay lahaayeen noloshiisana waxa uu la qaatay lamaane uu jecel yahay sanooyin tiro badan ayay xamse iyo ayaan farxad iyo jacayl ku noolaayeen tan iyo maantana haddaysan dhiman waxaa laga yaabaa inay farxad iyo jacayl ku nool yihiin waxaan sheekada tan ka baranay dhibta ay leedahay takoorka iyo bulshada aad la nooshahay oo aad qayb ka mida dhinac isaga saarto iyo xorriyadda oo laga qaada dhibta ay leedahay wax kasta oo aad noloshaada haysato haddii aanad xorriyad haysanin macna ay samaysaa ma jirto intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayna sheekada tan ku xigta waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo wakhtigu ha idin wacnaado